wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo maalmahanba safar shaqo u joogay magaalada Burco ayaa maanta xariga ka jaray xarumaha maaliyadda ee xaafadaha Plaza Kenya Sheikh Ibrahim iyo Jarmalka. Xarumahan oo dhamaantoodba ah kuwa cusub ayaa fududeyn doona maamul daadajinta wasaaradda maaliyadda iyo sahlanaanta cashuur ururinta cashuur bixiyaasha. taasi kadib wasiirka horumarinta maaliyadda ayaa dhagax dhigay xarunta wasaaradda maaliyadda ka dhisan doonto maxkamadda gobolka Togdheer si ay uga qayb qaadato ururinta cashuuraadka kiisaska maxkamadaha. gobolkan markaan isku tagnay waxaan isla garanay in xafiiska cashuuraha bariga halkan maadaama maxkamadahan dhulkan ay leedahay maxkamadan racfaanka iyo gobolka maxkamadan ay leedahay dhul weyna inaan meel ka siino 12 iyo 10 mitir oo rukunkaan arki doono aan siino si ay noogu soo dhawaadaan oo cashuurtii dadweynaha laga qaadayay meel noo dhow ay ku dhacdo gacan aaminana sida khasnadii dawladda ay ku dhacdo aan u garanay inaan ku wareejino saacad wasiir geesta kale wasiirka maaliyadda ayaa kulan la yeeshay maamulka rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer iyagoo isweydaarsaday xogta iyo horumarka ay sameeyeen ganacsatada gobolku. waxaanu wasiirku halkaasi ugu sheegay in aan wax maciishad ah oo lagu kordhiyay cashuuruhu aanay jirin hase ahaatee cashuuraha lagu kordhiyay qaadka. waxaanu wasiirku ku adkeeyay gudida ganacsatada in aanay bulshada ku kordhin maciishadaha iyagoo ugu marmarsiyoonaya cashuuro aanay wasaaraddu ku kordhin. sida cashuurta dadku ay u wada ururiyaan ayaa la yiraahdaa si la mid ah oo cashuurta qof walba ay waajib ugu tahay inuu bixiyo way cashuuraha inta badan dalkeena soo gala waa cashuuraha la yiraahdo consumption tax ama cashuuraha dadku isticmaalaan inuu idin sheegay cashuur la kordhiyay ma jirto ninka yiraahdo cashuur baa la kordhiyay waa beentiisa ha sheega cashuurta la kordhiyay cashuurta kaliya ee kordhinta qaadka yahay qolada mucaaradkana waa u furayna hadaan garin anaga barayna cashuur la kordhiyay ma jirto. ugu dambeyntii wasiirka horumarinta maaliyadda iyo mas'uuliyiinta maaliyadda ee magaalada Burco ayaa si wada jir ah magaalada Beer ugu soo gubay baco kontarabaan ah oo la soo qabqabtay iyagoo ku baaqay in gacan bir ah lagu qaban doono cid kasta oo kontarabaan dalka soo gelisa. bacahaasoo laga madnuucay dalka balse ganacsatadu ma aragto waxa madnuuca bay u aragtaa inay leedahay faa'iido degdeg ah. fara badan baa runtii loo soo galay oo shaqaalaha iyo ciidanka ilaalinta cashuuraha ee goobtan aan joognay ee Beer iyo goobta Burcaba ay ku jiraan 2,000 oo xabadood iyo 22 baag oo ah nooca la yiraahdo ila qabadaya ka waaweyn wasiir iyo dhammaan baa eeriyadan Burco barigeedu waxay noqotay marinada kontrabanka buuxu ka soo galaan dalka hase ahaatee maanta waxa astaan u ah gubistaasi aynu gubnay iyo heeganka aynu u galay ee wasiirkii maaliyaddu goobtan inala taagan yahay iyo dhammaan ciidankii ilaalinta cashuuraha agaasimayaashii dakhliga isku duwayaashii dhammaan waxay tusaale u tahay inay dib u soo mari doonin. waa Maxbuub Xuseen Dalmar.